اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة البقرة وسورة مكية. suuradaha makigaana waxaa lagu yaqaanaa waxay ka hadlaan sida qaalibka ah axkaamta sharciga ah iyo muwasafaadka dadka mu'miniinta ah iyo dadka kufaarta sifaadka ay leeyihiin iyo munaafiqiinta. suuradaha oo makiga ah munaafiqiinta kama hadlaan maxaa yeelay munaafiq xilligaa ma jirinba maka markii la joogay. axkaamtana sida oo kale dadku dad axkaan iclaansan kara ma ahayn. suuraddan marka waxay ka hadlaysaa sifaadka looga baahan yahay qofka mu'minka oo ahlu jannaha ah, sifaadka looga baahan yahay inuu iska ilaaliyo qofka muslimka oo sifaadka qofka gaalka oo ahlu naarka ah, sifaadka qofka munaafiqa uu leeyahay iyo calaamadaha lagu yaqaano, qisas iyo axkaam badan. ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay sifaadka qofka muslimka ah oo mu'minka ah ahlu jannahaana looga baahan yahay. alif laam miim waa 3 xaraf oo xuruufta ka mid ah. alif waa xaraf, laamna waa xaraf, miimna waa xaraf. saasay tahay wax loola jeedo garan mayno, ilaahay baa yaqaana. cilmigiisa marka allah ayuu khaas u yahay. faa'iidada ku jirtaa maxay tahay in la sheego ilaahay baa og iyadana, laakiin culimmada qaarkood bacda alistiqraa' waxay kala soo baxeen xikmadda laga leeyahay inay tahay dadka in lagu caajisgeliyo oo qur'aankani wax lala iman kara inuusan ahayn loo sheego, wax ilaahay khaas u ah inuu yahay loo sheego. saa darteed sida qaalibka xuruuftan markii la sheego waxaa ka dambaysa kitaabka oo awooddiisa iyo quwadiisa iyo mucjizadiisa iyo laga sheekaynayo. alif laam miim dalika alkitaabu laa rayba fiihi xaamiim tanziilu lkitaab. kitaabkaasaa inta badan ka dambeeya. marka icjaaz qowlka ayaa waxaa rajaxay shaykhulislaam ibnu taymiya iyo mizi xaafid ilmizi iyo ibnu kathiir iyo rag badan oo muxaqiqiinah oo u badan raggii oo luqawiyiinta ah sida samakhshari iyo mubarid iyo kayrkiiba. marka waxaa la leeyahay dadkan carabta ahaa oo fusaxada ahaa alif iyo laam iyo miim waa xuruuftan ku hadlayseen, faseexana waa sheegateen. haddaad dad awoodla tihiin bal iyagoo kale keena, kaasaa ugu dhow, laakiin allahu aclam bimuraadi. alla wuxuu uhi dalika alkitaab hada alkitaabu laa rayba fiih. kitaabkan qur'aanka ah wax shaki ah kuma sugna inuu kitaab alle ka yimid uu yahay oo xaq ah. dalikada ismu ishaarada fog baa loo yaqaanaa. kitaabkuna hadda ma foga, laakiin sha'nigiisaa kor loo yeelayaa, kor loo qaadayaa. marka alle wuxuu leeyahay kitaabkan qur-aanka ah waa kitaab wax shaki ah uusan ku sugnayn oo xaq ah, munazal min cindi illaahina ah. dalika ay hada alkitaab, kitaabkan qur-aanka ah laa rayba fiihi, wax shaki ah oo ku sugan ma jiro. waa kitaab alle oo munazal min cindi illaahi ah. hudan hanuun buuna u yahay lilmuttaqiin, dadka ilaahay ka baqaya wuxuu yahay hidaayo
wadada xaqa uu tusinayo oo uu cadeynayo jidka xaqa ah oo jannada lagu galayo hidaayadu saan horena u sheegnay laba nooc bay u qaybsantaa mid waxa la yiraahdaa hidaayatu tawfiiq midna waxa la yiraahdaa hidaayatu dalalati wal irshaad tan maanta waa tii hidaayatu dalala wal irshaad ahayd kitaabku wuxuu ina tusinayaa oo inugu tawjiihinaya oo inoo cadeynaya oo inoo kala dhigdhigayaa wadada xaqa ah iyo calaamadaheeda lagu garanayo marka hudan hanuun buu kitaabkaani u yahay lil muttaqiina dadka ilaahay ka baqaya oo mu'miniinta ah dadkaas hanuun buu u yahay qofka taqiga waa qofka macaasida ilaahayna iska ilaaliya wixii awaamirta alla siiyeyna la yimaada muttaqiintu marka waa qoladee calaamadaha lagu garanayo maxay yihiin qofka taqiga ah maxaa lagu yaqaanaa aslan taqwada waxa la yiraahdaa qofku inuu is ilaaliyo min alwiqaaya ayay ka timid Umar ibn Khattab ayaa maalin maalmaha kamida wuxuu weydiiyay Ubay ibn Ka'b bal waxaad ii fasirtaa taqwada maxaa loo jeedaa weey markaasuu yiri marna adiga oo kabala meel oo gacandhi iyo qodxa leh ma ku lugaysay ha buu seed samaysaa buu wuxuu waan dadaalaa waxaan sameeyaa lugta meeshaan dhigayo baan ka fiirsadaa wa aadna waa isu ilaaliya anoo qodaxda iyo ka taxadaraya inaan ku istaago taqwada lagu sheegay waa sidaas uu yiri waxa la rabaa inaad taxadartid oo waxa afkaaga ka soo baxaya iyo waxa adinkaaga ku sameynaysid ma wax ilaahay raali ka yahayba ma wax xaq ahaa inaad marka hore hubsatid inta aadan kuba dhaqaaqin ficilkaba wixii ilaahay u raali ka ahayn inaad iska daysid hadalkiisa iyo ficilkiisa wixii alla raali ka yahayna inaad samaysid hadalkiisa iyo ficilkiisa labadaba ilaahay marka wuxuu yiri muttaqiintu alladina kuwi weeye yu'minuuna rumeeyay bil ghaybi waxa cilmu ghaybka oo aysan arag laakiin loo sheegay oo maqleen qolada rumaysay ayaa la yiraahdaa ويقيمون الصلاة صلاتنا تكنيي أو حفظنيي شروط هذه أركان هذه أو لمستريا ومما رزقناهم حوله أنكو أرزاقنا سينينا ينفقون وضد حق أكو بحني إلهي وحي سبحانه وتعالى هدادنا ويدسين المتقين توحي تهي متقين بالله نوصفين إياه محييهين قفك تقيقا والذين يؤمنون بالغيب ودولك وحيابها غيبك الرمية إيمانك وحل هذا التصديق حق اللقضة حق الشرع وحل هذا واعتقاد في القلب هي عمل في الجوارح وقول يفعل يزيد وينقص قفك قلبك إنه كرميه وحيابها عن شيغني أو غيبك أو هردان هذا قول أهان وأقول واقع سيدا أي يهين فعل أهان وحي لقرب وفريه marka yu'minuuna bil ghayb ghaybkay rumaynayaan baa leeyahay maxaa ghayb looga dhigay culimadu waxay leeyihiin ghayb waxa looga dhigay waxyaabaha arkaanta iimaanka waa wada ghayb weeye rasuulka markii la weydiiyay oo malakul jibriil uu weydiiyay fa akhbirni 'an al-iiman wa rasuulka an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi كل أفر صدا ووح وذا غيب أو إن أرق أن تؤمن بالله وح إله أركين وجره وغيب وملائكته ملائكته وحركين وجران وغيب وكتبه كتبته وحركين وجران قوري سودك تورك ما هنا ولا ينوك هنا وغيب واي أنت أصل كتاب سودك تبع لليه
iyagoo inaga maqan bay soo degeen inagu war kama hayno goortii soo degeen laakiin waxayna soo gaadhay qoraalkoodii wa rusulihi waxa maynaan ka arag rusushii waa qayb haddii ba ay qayb arkeen xataa qolo walba qayb ay arag baa jirta rususha ay rumaynayaan waa qayb marka wa bil yawmil aakhir aakhira waxa ka dhacay waxba kama ogin wax arkeen ugu mala janna lama arag cadaab lama arag xisaabtan lama arag waa wax wada qayb ah wa bil qadari khayrihi wa sharrihi waxa qadarto alla inoo qadaray khayr iyo shar mid ay tahay waxba kama warhayno laakiin waxaan ku qanacsanahay inaan wada dhimanayno wax alla inoo qadarana ay tahay arsaaqdeena inuu ilaahay qoray oo qof walba wixiisa la siinayo wax alla inoo qadarana ay tahay waa ku qanacsanahay waa rumaysanahay marka qayb waxa soo dhan waa wada qayb waaye idan calaamadaha qofka taqiga lagu garanayo waa qof iimaan laga helay oo arkaantii iimaanka oo dhan la yimid ويقيمون الصلاة أركانتي إسلام كالا قلي قفكم مركي وأركان الإيمان لي مادو وحالق ربا أركان الإسلام إنه لي مادو شهادتين كأوه الرئية محاكو حقا صلاة دا كو حقت محاكو حقا زكاة دا كو حقت أياقب هدانا لقلي alla wuxuu calaamadaha lagu yaqaan waxa kamida dadkan oo muttaqiinta oo ilaahay ka baqay oo ahlu jannada ah yuqiimuna as-salata salaaday daa'iman oo si joogto ah bay u tukanayaan iqaamatu salaad macna waxa weeyaan idaamatuha wa hifdhuha salaada inaad xifdidid oo daa'intid waqtigeeda aad ku xilaalisid adigoo arkaanteedii saxaya shuruudeedina saxaya waajibaadkeedii iyo nawaafisheediina la wada imanaya ومما رزقناهم وحي الله كو أرزاقينا ينفقون والله بحيان صلاة وحل هذا حق الوقت عبادة على الله دعاء على الله وعبادة والدعاء حق الشرع كان وأقوال هي أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وفعل لصمين يتاغني هي فرص هي سجود قول الله إيمان هي فاتحة هي تكبير هي التحيات الله أكبر بالغو بالله بيا السلام عليكم نوالغو ختميا ومما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم مزكى موبيل كرير كلا سينيبا ما صدقات تطوع ودتك أجنبي قال سينيبا ما كل جيد باللو كذا أنت بعلم دواجي هذين لكن قولك أقول صحيح حسن أو ابن جرير غير كذا أي صحيح يالان ابن كثير وحاصلا واللو كذا وعام وينفاقه زكدي واجب كايد باكمدا biilkii la siinay reerka kamida qaraabada xidhiidinteedii baa kamida masaakiintii kale lagu sadaqaysanaya kamida wixii ilaahay ku siiyo arsaaqda aha waxaad weeye infaaq waa ku sameynaysaa waa bixinaysaa alla wuxuu yiri wamimma ay min ba'di ma razaqnahum waxaan siinay qayb kamida bayunfiquna bixinayaan kulligii iska bixin maysid mintu tabciidiya waay qayb kamida ayaa iska bixinaysaa zakadu waa qayb wixii lagu bixiyo qaraabada wixii la siiyo waa qayb waxna aad la hadhaya halkaana waxa lagu sheegay zakadii idan aayadu arkaanul iimaan iyo arkaanul islaam ba dadkan inay la yimaadeen bay inoo sheegtay qofka taqiga waa qof arkaanul iimaanna laga helay arkaanul islaamna laga helay labadaana intii kale ayay dalaalo u yihiin والذين كوي ويه متقين يؤمنون الرمينيي بما أنزل إليك وحي نبي الله محمد لغو سو دجيي وكتابك القرآن كا ددك الرميي واي ددك متقين تا او لربو اهل الجنه وما شيء وي رميين أنزل من قبلك adiga horta wixii la soo dajiyayna way rumeeyeen isagana
وبالآخرة ما أنت قيامة وآخرة هايدنا يوقنون وكوا هو إني تجيان يقين توحى الله واحد علمك جازمك كوكتا وهبتد بالله مرك آخرنا وحي هبان إن آخرنا لا تجيان وهبان نمك يقين سنيه labadan qolo oo markii la sifeeyay ma isku qola oo dadkii muuminiinta ah ama ha ahaadaan muuminiintii carabta ahayd oo muuminiintii ummadu Muhammad ha ahaato ama muuminiintii ahlu kitaab wixii ka islaamay ha noqdaan muuminiin oo dhan baa loo jeedaa wixii laga helay muwasafaadkan mise aayadda hore waxay ka hadlaysaa qoladii rasuulka rumaysay oo ahay dadkii aan yahuudi ahlu kitaabka ahayn aayadda dambana waxay ka hadlaysaa qoladii ahlu kitaabka ahayd oo rasuulka rumaysay intaba waa la yiri laakiin waxay aimadu rajaxeen inay iyaduna aayaddu caam tahay oo mu'min oo dhan ay aayaddu ay soo hosgelayaan ama ha ahaado ahlu kitaab mu'minku ama ha ahaado ummadeenna ama ummadihi kale ha ahaado carab ha ahaado cajam ha ahaado qofkii mu'min ah oo calaamadan laga helay kaasa taqiya marka waxaan ku soconaynaa inay caam tahay walladina kuwi weeye dadka muttaqiinta ah yu'minuuna rumeeyay bima unzila ilayka wixii lagu soo dejiyay nabiyullaahi maxamed oo kitaabka quraanka ah wama shayna way rumeeyeen أنزل لسودجي من قبلك كتاب هذه كاهرية لسودجي نوار رميان توراة إنجيل زبور وبالآخرة آخرنا يوقنون وكوا إن دعيسو أو هو سيدا نفتوض أهبا إن دمان يسو وإنه شيء بآخرنا إن جرتا أهبا marka yaqiin bay gaareen aakhira say u rumaysan yihiin waa yaqiin waay wabil aakhirati aakhirana hum yagu yuqinuna kuwa rumaysan waay ulaa'ika inta aan soo qolyaha aan soo sheegnay oo calaamadaha laga helay qaybka rumeeyay salaadii si fiican u xifdiyay zakadii iyo khayrkii iyo sadaqaadkii oo dhan bixiyay kitaabka quraanka rumeeyay kutubtii hore rumeeyay aakhirana rumeeyay على هدى هنون بيكوشغان قلاداس النور يا حق اي كتاغان يهين ددكاس ودد وددي حق اي كتاغان اولئك كواسي على هدى هنون بيكوشغان يهين وددي حق اهيد اي هيان هنون كاسو من ربهم هدايه سو الهي حقي سكتمد قلاداس وقول الهي وافجيه حقي واي قلاداس حقي بألا وافجيه دتكاس وهداية التوفيق إلهي بوافجيه وأولئك كواسي هم إيونا المفلحون وكوا قوليستي واي فرسولك لقوري صلى الله عليه وسلم إنه يدي مربتان إنا إذن شاقدتك أهل الجنة هذا اللي آيادن وآخر آيادهان saxaabadu waxay dhaheen rasuul allah waxaan rajaynaynaa in kuwan ilaahay naga dhigo ahlu naarka inaan idin sheego ma rabtaan buu haaba leeyay aayadaha ka dambeeyo soo socda ayuu akhriyay qofkii marka muwasafaadkan laga helo waa qof ahlu janna ah weeye ilaahay baana subxaanahu wa tacaala u markhaati kacay dadkan inay yihiin dad guulaystay oo xaq ku sugan oo hanuunsan oo ilaahay waliba xaqa iyo hidaayada u waafajiyay in alladina